ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Somaliland oo galay maalintiisii saddexaad ayaa waxa maanta garoonka Hargeysa Stadium ka dhacay laba ciyaarood kuwaas oo ay ciyaarta hore isku haleeleen xulalka gobolada Awdal iyo Badhan. Xulka gobolka Awdal ayaa daqiiqadii 13aadba goolkiisii ugu horeeyay ku hubsaday shabaqa xulka gobolka Badhan. qaybtii hore ciyaarta ayaa ku soo gabagabowday 1-0 oo ku awood sareeyo xulka gobolka Awdal markii la isku soo laabtay 45 daqiiqo ee dambe ayaa xulka gobolka Awdal haddana goolkiisii labaad la yimid daqiiqadii 61aad isagoo mar labaad haddana shabaqa xulka gobolka Badhan goolkaasi haleelsiiyay. xulka gobolka Badhan oo aan iyagu dhankooda marnaba aan teela dhigan ayaa dhankooda muujinayay awood xooggan iyaga oo weerar xoog lagu soo qaadayay xagga goolka Awdal laakiinse ciyaartu waa barmadow iyo barcade haddii aan nasiibku ku siin heli meyside. haddana waxa goolkii saddexaad shabaqa ku hubsaday xulka gobolka Awdal oo isagu daqiiqadii 83aad haddana haleelsiiyay shabaqa xulka gobolka Badhan. xulka gobolka Badhan ayaa natiijo la'aan kaga soo caraabay garoonka Hargeysa Stadium halka uu guul loo hoyday xulka gobolka Awdal oo isagu 3-0 kaga badiyay gobolka Badhan. waxa haddana la gudagalay ciyaarta xigtay oo iyadana ay isku haleeleen xulalka gobolada Sool iyo Gabiley. ciyaartaasi oo iyaduna si xamaasadaysan ku bilaabantay taageerayaasha kala taageeraya kooxaha oo iyaguna fadhiyay tarabuunka Hargeysa Stadium sacabkana ay garaacayeen xulalkoodana kala taageerayeen ayaan haddana labada xul qaybtii hore ciyaarta aan wax gool la iman. haddana markii la isku soo laabtay qaybtii dambe ee ciyaarta ayay haddana 90 daqiiqo ku soo xirmeen eber ama gool la'aan. waxa lagu daray 2 daqiiqo laakiinse labada xulba waxa ay garoonka Hargeysa Stadium kaga hoydeen gool la'aan. tartankan ciyaaraha gobolada waxa iyaguna barbar socda tartanka ciyaaraha orodada fudud iyagoo ay ku tartamayeen qaybta hore 100 mitir waxaana 100 mitir oo galabta la soo xidhay ku guuleystay Yacquub Isxaaq oo ka socday gobolka Hawd oo isagu rikoodhka jaray. waxa ciyaarta daawanayay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda oo ka hadlay daroonkooda ku wajahana tartanka ciyaaraha gobolada waxaana mas'uuliyiinta kamid ah wasiirka horumarinta beeraha Axmed Muumiseed, wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha Boos Imre Maxamed iyo mas'uuliyiinta mas'uulka ka gobolada ay xulalkani ka ciyaarayeen. aad baan ugu mahadnaqayaa TV-ga qaranka iyo wasaaradda warfaafinta guud ahaan iyo idaacaddaba sida wanaagsan ay ummadda ugu baahinayaan. waxaan leeyahay halkaa ka sii wada siina kordhiya guul baan idin rajaynayaa. wasaaradda warfaafintana aad baan u wada ammaanayaa ilaa wasiirkeedu telefoonku igula soo hadlayay saacad wasiirka aad iyo aad baan u tahnidaynayaa koore isagoo jooga nabad ku jira oo meel fog jooga buu daqiiqadii la soo hadlayay wuxuu weydiinaysaa u shaqaynaysaan. waxaan leeyahay wasiir wasaaraddaadii si wanaagsan bay u qabsatay howlihii loogu talagalay. dareenkayguna aad iyo aad buu runtii u wanaagsan maadaama si nabadgelyaha ciyaarihii goboladu ay dalka uga socdaan. waxaan aad u hambaleynayaa wasiirka ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland Boosmare oo runtii abaabulka iyo howlo badan tacab badan geliyay sida si nabadgelyaha ay halkan uga daawan lahayn sida runtii ciyaaruhu inay uga socdaan nabadgelyo wanaagsan. waxayna laynaga daawanaya daafaha adduunyada oo dhan runtii oo si leef uga baxaya barnaamijka waxaana baahinaya TV-ga qaranka oo runtii inagana la howlwadana fiican baatiinad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan dareenkayga ka muujinayaa inuu aad u faraxsan yahay because of kuubkan laftigiisu waxa gobolka Awdal buu la jiray oo anaga keenay iminkana inaan la noqonaan rajaynayna haddii la yiraahdo labada kooxoodna waan u mahadnaqayaa sida wanaagsan ay ciyaartu ku bilaabantay. aad baan idinku mahadinayaa inaan idin la kulanno maanta aan ciyaarayno waxaan rajaynaynaa guul. annagu kulle gobolada waxbaanu waxaanu dheerayna waxa weeydaanu koobkii baanu haysanaa. dadka kale koobay doondoonay anagu waanu haysanaa anagu noqoshanu deedeynaa. marka insha Allah waanu la noqon doonaa baanu leenahay insha Allah taala guul baanu rajaynayaa kooxdayda. sida ogtihiin ciyaarahan waxay bilaabmay 28 bishan imika aynu ku jirno ee October waxaanay soconayaan ilaa bisha 11aad 17keeda insha Allah bidnillaahi karim. waxaan rajaynaynaa guul. waxaan ammaan soo jeedinayaa TV-ga qaranka oo mar walba live-ka iyo wareysiyada iyo maxaan ku dhawaaqay wacyigelinta ciyaaraha gobolada ka qayb qaadanaya hadday tahay orodada iyo hadday tahay kubadda cagta iyo hadday tahay basketkaba aad iyo aad baan u ammaanayaa.
si fiican bay hawshaa nimankaas u wadaan oo xilkas leh wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu waxay halkan message uga diraysaa bahweynta ciyaaraha ee kala duwan ee maanta ku sugan garoonka Hargeysa Stadium iyo garoonka Timcadde oo caawa ciyaaraha ku daawan doonaan waxaan u soo dirayaa inay hawsha aad isaga xil saaraan oo ilaaliyaan nabadgelyada oo ay ka qayb qaataan wacyigelinta oo naadiyada cid walba cid ay taageerayso si nabadgelyo oo